السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو وعن وناكسن داوضيال لهانتي بملك استودافا عالم كاد كتشوبتان halkani waa telefishinka caalamiga ee SRS TV ku soo dhawaada war wixii waqti xaadirkan laga soo gaaray guud ahaan dalka deegaanka Soomaalida iyo caalamkaba qodobada wararka ugu door korona akhiyaari waxaa kamid ah shirqoolka Itoobiya dhigtay iyo ujeedada ay ka leedahay saldhigga cusub ee ka furanayso dhulka dawladda deegaanka Soomaalida Somaliland oo war xasaasi ah ka soo saartay xiriirka kala dhaxeeya dalka Kenya maxay tahay ujeedada ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed uu dabada uga riixay wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya akhiyaari kuwaas waa qodobada wararka ugu door korona haatan u diyaar garooba kuwan iyo kuwa kale faahfaahsan Abdullahi Nuur Xaashiwa falanqeeyaha arrimaha siyaasadda ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha saldhigga Amison lagu wareejinayo dhulka dawladda deegaanka Soomaalida ay muddo dheer gadaal ka riixaysay dawladda Itoobiya Abdullahi Nuur Xaashiwa oo wareysi siiyay idaacadda Kulmiye ayaa sheegay in saldhiggaasi uu noqon doono halka laga ilaalinayo danaha Itoobiya ee gudaha Soomaaliya isla markaana ay dawladda Itoobiya heli doonto awood dheeraad ah oo ay kula socoto dhaqaaqyada gudaha dalka Soomaaliya intii ay jirtay dawladii tan ka horeysay oo hogaaminayay madaxweynihii hore Xasan Sheekh mar uu tagay dawladda deegaanka Soomaalida wuxuu hadal hayay inuu furi doono saldhiggaas loona wareejin doono mustaqbalka dhow saldhigga weyn ee Amison maadaama ciidamada ugu badan ee dalka jooga ay Itoobiya yihiin kuwa sharciyeysan kuwa aan sharci ku jooginba isla markaana ay leeyihiin siyaasad ku wajahan gobolka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya iyo la socodka dhaqaaqa maadaama ay jiraan dhibaatooyin hore oo aan la xallin Itoobiya waxay muddo raadinaysaa inay sharci u hesho awood ay kula socon karto dhaqaaqa gudaha Soomaaliya sidoo kale Abdullahi Nuur Xaashi falanqeeyaha arrimaha siyaasadda geeska Afrika wuxuu sheegay meesha ay marayso galaangalka wadamada reer galbeedka oo damac weyn ka leh gobolka geeska Afrika iyagoo si gooni ah u doortay in ay xoog saaraan dalka Itoobiya oo ah kan ugu dadka badan gobolka Abdullahi Nuur Xaashi falanqeeyaha arrimaha siyaasadda geeska Afrika wuxuu sheegay in qorshaha nidaamka federaalka ee lagu kala qaybinayo Soomaaliya ay fuliye ka tahay dawladda Itoobiya isla markaana awoodeeda ciidanka aysan ka maarmayn iyadoo ay xusid mudan tahay in ciidamada aan qayb ka ahayn howlgalka Amison ay ka joogaan gudaha dalka kuwaas oo u jooga fulinta dano gooni ah saldhiggan laga dhisay gudaha Itoobiya gaar ahaan dhulka Soomaali galbeed ayaa waxaa la isla sheegay in ku baxayso lacag dhan 3,000 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxaana la sheegay in lacagtaasi bixinayso dawladda Mareykanka Abdullahi Nuur Xaashi ayaa ugu dambeyntii ugu baaqay siyaasiyiinta Soomaalida in ay la yimaadaan arrin fog oo looga hortagi karo khatarta ku soo wajahan mustaqbalkooda wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Mudane Yaasiin Xaaji oo warramay wargeyska geeska Afrika ayaa ka haray arrimaha ku aadan xiriirka maamulkooda kala dhaxeeya dawladda Kenya ugu horeyn wasiirka ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo dood la sheegay inay toddobaadkani ay ka taagneed golaha wasiirada Kenya oo ah aqoonsiga Somaliland wasiirka ayaa xusay in Kenya tahay dal daris yihiin isla markaana uu kala dhaxeeyo xiriir dhinacyo kala duwan ah dalka Kenya waa dal aanu jaarnahay waa dad aynu xiriir dhinacyo badan leenahay waxay in badan inoo soo direen muftiye aad u culus inaguna sidaas la wafti ayaynu u diri doonaa marka iskaashiga aynu la leenahay si adkaado haddii ay qadiyadeena iyo aqoonsigeena ka doodayaan waanu soo dhaweynaynaa Kenya ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud sidoo kale wuxuu intaasi ku daray Somaliland inay diyaar u tahay inay sii xoojiso xiriir kala dhaxeeya wadanka caalamiga ee Kenya Somaliland ayaa waayihii ugu dambeysay sameynaysa xiriir caalami oo la yeelanayso wadamada dariska ah ururka xasaaradaha caalamiga ee ICG ayaa warbixin soo saaray uga hadlay wada hadalka dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland iyo ujeedada uu ka leeyahay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo gadaal ka riixay wada hadalkaasi Abiy ayaa bishii Febraayo wuxuu xafiiskiisa ku kulansiiyay madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Bixi wuxuuna kadib ka shaqaysiiyay wada hadalka bishii June ka dhacay Djibouti ee labada dhinac ay sidoo kale ku lug lahaayeen Mareykanka iyo Midowga Yurub ICG ayaa sidoo kale sheegtay inuu Abiy Ahmed uu leeyahay laba ujeedo oo mid ay tahay gudaha dalkiisa midna ay ku lug leedahay danaha uu ka leeyahay Soomaaliya warbixintan ayaa lagu sheegay in Itoobiya ay dan dhaqaale ka leedahay Soomaaliya gaar ahaan gobolada waqooyiga ama Somaliland kuwaas oo hadii aynan heshiinin Muqdisho iyo Hargeysa ay adkaan doonaan Itoobiya waxay iminka xiriir xooggan la leedahay dawladda federaalka oo ay taageero ciidan siiso waxay sidoo kale dan weyn ka leedahay in ay xiriir wanaagsan la yeelato Somaliland dekada Berbera ay ku leedahay saamidan boqolkiiba 19 ayaa muhiim u ah dalka aan badda lahayn Itoobiya iyo isku day uu ku doonayo inuu dad ku helo ayaa lagu yiri warbixintan balse way ku adkaan doontaa Itoobiya inay ku guuleysato hadafyadeeda haddii maqaamka siyaasadeed ee Somaliland aan xal loo helin isla markaana ay sii socoto cadaawada ka dhaxaysa Hargeysa iyo Muqdisho dib u heshiisiin ay dhex dhigto labada dhinac
waxay xaqiijin kartaa in Itoobiya ka caawiso in danaheeda berbera ay la jaanqaado xiriirka siyaasadeed ee qotada dheer. warbixinta ICG ayaa sheegtay in danta labaad ee Abiy Ahmed ay tahay inuu heshiis dhex maro dowladda federaalka iyo jamhuuriyadda iska madaxbannaanida ugu dhawaaqday Somaliland inuu Abiy ku damiyo xiisada siyaasadeed kaga furan dalkiisa. Abiy waa nin ay gudaha dalka Itoobiya ku haysato rabshado badan, guul diblomaasiyadeed oo muuqatana uuna weli ka keenin. Abiy wuxuu raadinayaa inuu sumcad ku helo sidii tii hore ama heshiiska hore ee Eritrea iyo Itoobiya oo uu ku helay abaalmarinta nabadda adduunka. hadda dalka Itoobiya sida u muuqata waa mid si kala firdhaya ama kala tegaya. akhyaarta qiimaha iyo qadarinta naga mudan ee qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilli tabinteeni wareed halka aad sida tooska uga dheehanayseen waa telefishinka caalamiga SRS TV intaan ku kulmi doona xilli tabinteena xigta oo aniga iyo bahda SRS TV oo kaga tagay sida iyo nabadgelyo.